madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo socdaal shaqo isaga wafdi hogaaminaya ay ku joogaan waddanka Masar ayaa maanta waxa uu la kulmay madaxweynihii hore ee dawladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan. kulankaas oo sidoo kale goobjoog ka ahaayeen wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa ka dhacay caasimadda Qaahira oo xilliyadii dambe deegaan u ahayd mudane Cabdiqaasim Salaad Xasan, waxaana uu sheegay inuu ku faraxsan yahay sida dalku uga soo kabanayo burburkii muddada uu ku jiray. shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa haddii aan horta Ilaahay loo soo noqon dhibaatadu naga tagi mayso nagana kici mayso. horta Ilaahay loo soo noqdo diinta islaamka iyo Ilaahay loo soo noqdo waa marka koowaad. marka ku xigta oo hal la baryo Ilaahay hal la baryo oo quraanka hal la akhriyo oo qof walbaaba faatixada qofkii yaqaan faatixada inta akhriyo inta soo goorto 7 goor uu yaraan inta akhriyo Ilaahu Rabbi oo dalka balaayada ka dulqaad hayira meel uu joogaba. marka ku xigta hal la iscafiyo Ilaahay cafis hal la warsado si Ilaahay noo cafiyo annagu waa inaan iscafinaa waxaan shaki lahayn dawladdu wixii ay ka qaban karto inay ka qabanayso dadkii hantidooda ama la qaatay ama dhibka loo geystay sidii wuxuun loogu qaban lahaa. laakiin waxaa la rabaa in duqeyda culamaa u diinka dadka wax garadkaahu arrintaas ay wax badan ka qabtaan Ilaahay si uu dhibaatada nooga dulqaado. aan barino Ilaahay dabadeedna aan isoo noqonno gacmaha aan isqabsanno koonfur iyo waqooyi iyo bari iyo qoraxsin meel kastaba hal iscafiyo Ilaahayna hal la baryo ayaan leeyahay. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa maanta lagu wadaa sidoo kale inuu la kulmo Sheekh Al-Azhar Dr. Ahmed Al-Tayyib iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool waddankaasi.